Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dalka ugu xoolo dhaqashada badan adduunka amaba hadday noqon lahayd ariga iyo geela iyo lo'da intaba. Halkani waxaan dhex joognaa xero ay ku jiraan ari fara badan oo leeyahay qol Soomaaliyeed. Arigaasi oo isugu jira noocyo fara badan. Ariga waa nooc ka kooban, waa nooc ka mid ah noocyada idaha la yiraahdo. Idaha oo nooc loo yaqaan naciimka. Haddana waa arigii oo dareeraya leeyahay. Arigani waa arig aad loo dhaqaaleeyay waxaana cunaa roodhiskan waa caws ay shirkado sameeyaan oo beero laga soo koro aad ayuu qaali u yahay. Habeenkii xeradan ayuu iskaga jirayaa, halkaan ayuu cunayaa, maalintiina waa laga dareerinayaa. Kuwani waa dhallaankii ariga ama idaha sidii loo yaqaan waa laga reebaa ayaga shabaqaya lagu sii daayaa, yacni shabaqa ayaa lagu celiyaa habeenkiina waa lagu saxrayaa. Waxaa la diidayaa in bahalada iyo ugaartaba aynan wax yeelaynin. Halkani waa weelkii wax lagu siinayay, halkan ayaa lagu shubayaa waxyaabaha shaciirka iyo cawska intaba. Hal xabo weyn oo u yaala ay cunaan habeenkii. Kuwanina waa ircadkii ama riyihii aad sidii loo yaqaan kan waa argay aad iyo aad u weyn oo cadcad. Tani waa ri, tanina waa mid dhudhul rato caloosheeda u jeetay inay weyn tahay. Taasi way xanuunsanaysaa ujeedaa aad iyo aad ay u liidataa. Maasha Allah, xoolahani waa xoolo iska dhaqan Ilaahay amarkiis, xoolo iska dhifaysan. Weelkan ayaa biyaha lagu shubaa, halkaas ay biyaha ka cabayaan, halkan ayaa lagu waraabiyaa. Kana waa weel kale oo biyaha loogu shubo. Barnaamijkeena maanta aan ku ogeynay xoolaha intaas ayuu noogu ogyahay.